adag warbixin ka duwan wax adiga kula mudan ayaa meel kale qiimo la'aan ka ah waxa maanta sidaa ka dhigan geeli qiimaha lahaa Soomaalida agteeda meesha sare ka joogay oo maanta sida lagu soo warramayo dalka Australia ay ku eedeynayso inuu ka mid yahay dhibaatooyinka deegaanka haysta isla mar ahaantaana uu cababiye ka badan intii la manaafacaadsan lahaa taasina ay keentay in maanta loo balansan yahay laynta geel gaadhayo 10 cajiib Ibrahim Umar Baafo oo ah saxafi madax bannaan oo dalkaas Australia ku sugan ayaan balkala sheekaystay xaaladda geelaas iyo waxa layntaasi ka lifay maanta oo Arbaca waxa dawladda Australia ay ku baaqday in ay bilaabato laynta ama dilidda 10,000 oo neef oo geel ah kuwaas oo la sheegay in maanta Arbaca ay bilaabato ilaa iyo maalinta Axad ay soo aadan bishan beriya lagu soo gabagabeeyo sababta loo leynayo dabcan waxa lagu sheegay in geela biyo badan uu cabayo aadna u haraadan yahay xilliganna waa xilli lagu jiro deminta dab baaxad weyn oo guud ahaan dalka Australia qabso Ibrahim marka geela leynaya waa geeli aynu naqaanay ka Soomaali ahaan inuu dhaqan jirnay kamid ah waxyaalaha inagu qaalisan waa geela qiimaha weyn ku lahaa dhulka Soomaalida oo runtii ahaa mid diyada lagu bixiyo mid wax walba oo qofka Soomaaliga ah marka uu leeyahay 100 halaad oo geela waa nin taajira oo ku faano inuu dadka wax dheer yahay marka Ibrahim geeli Soomaalidu isku leeyin jirtay waxaad leedahay Australia si macna la'aan loogu dilaya ku dhawaad 2 milyan oo geel ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin Australia intooda badanna waa kuwa aan la dhaqan oo duurjoog ah oo halka baadiyaha iska ordaya waxana ay sheegeen dawladdu in amaba dadka deegaanka meelaha baadiyaha degan in biyo aad u fara badan uu ka cabo oo biyuhu ka dhameeyay bay'adii uu dhibaateeyay isla markaana waxay codsadeen marka in geelan laga laayo waxa hadda la go'aamiyay 10,000 in 5 bir gudahooda lagu laayo dabcan waxa cajiib ah laynta geela dadka tooganaya in ay lacag ku qaadanayaan ala geel intaas oo 100 in lagu siinayo inay dilaan marka qof kasta wuxuu tirsanayaa inta halaad oo dhulka dhigo waka inta halaad oo dhulka dhigo ama ha noqoto in banduq lagu toogto oo dhulka ama in diyaarada loo kiciyo diyaarada qumaatiga oo kacay helicopterka ayaa loo kiciyaa lagu laaya marka Ibrahim beeraan ba si guud marka Australia soo wajahday arrintan cimilada iyo waxaasa loo maleeyay in geelu qayb ka yahay dhibaatada deegaanka haysta aad iyo aad dabcan waxaad arkaysaa marka dabka la daminayo in biyaha diyaaraduhu qumaatiga u kacay kor biyaha ugu rusheynaya ay ka qaataan meelaha sida waraha ama laydka iyo swimming poolada xataa dadka tijaarta isticmaalaan sida daraadeed geelana waxaanu ognahay in biyo badan uu cabo dhulka qaarna abaar buu noqday maadaama hadda jilaalkii lagu jiro sida daraadeedna waxaa la amray marka in geelan 10,000 5 bir gudahooda lagu laayo oo Ibrahim ka Soomaali ahaan ma tiraahdan Australia warbahalkan dhulka igu qiimo leeyahay ka daayo annaga marka banasi aanu raranay Soomaali isku dayday way jiraan inay xanaanaystaan hadda waxa la sheegay dhowr qof oo ilaa iyo 2 ilaa 3 qof oo shakhsiyaad Soomaaliya in beera ay ku xirteen oo ay caanahooda iyo hilibkooda ba iibgeeyaan iyo dadkuna ay fuulaan oo ma garanaysa markii goobahaasi la tago laakiin kuma badno 90% geel waa duurjoog waana ku baadiyaha ku jira oo marka ma aha geel dhaqmayo oo la dhaqi karo waa geel bahaloobay waa la dhaqi karaa haddii dadku ay codsadaan weliba dawladdu waxay ogashahay in meel xero loo geliyo hadday dhaqan karaan ay dhaqdaan laakiin Soomaalida halkan joogto maaha Soomaalida dalkeena joogtay oo geela iyagu naftirkooda sidaan Australian-ka warkaan bay u arkaan waqti uu helmayaan in geel la dhaqo kayn loo baxayo waxa Soomaalida halkan joogto labadii waxyaabood ugu fiicneed oo dalka markii la joogay oo ay haysteen oo in xoolaha la dhaqdo in beeraha la tacbado intuba halkan kuma hayaan kaas waxa uu ahaa Ibrahim Umar Baafo oo inooga warramayay geeli oo lagu leynayo maanta Australia